aan tagnay wuxuu ku dhahay guriga ku sii geynay xaafada kugu Victoria kadib wax buu ii soo gaday oo dadka maaragtay ku sarqaamayo oo miirku ka tagayo soo gaday cabitaan buu ii soo gaday animaan ogeyn inuu wax ku soo darayo in kale kadib marka cabitaanka aan cabay baa igu dambeysay inaan miir dhawn bay igu dambeysay kadib wuxuu keenay xaafadiisa markuu xaafadiisa keenay wuxuu iga duubay filin anigoo maaragtay aan hayn qof maaragtay bahalkii daawadayaal halka aad nagala socotaan waa faaqidaada wararkooda had iyo jeer ka daawataan muuqaalo kala duwan oo ku saabsan arrimaha fanka siyaasadda qisooyinka iyo waliba dhacdooyinka markaas taagan waxaan maanta idiin soo gudbinaynaa arrin la yaab leh gabar Soomaaliyeed oo laga duubay muuqaal anshax darro ah balse marka hore inta aynaan u guda galin haddii aad nagu cusub tahay oo ay ku tahay markii ugu horeysay aad daawato muuqaaladeena waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saarto sidoo kale aad furato gambaleelka yar si aad mar walba u hesho muuqaalada iyo warbixinada xiisaha leh ee aanu halkan soo galino gabar lagu magacaabo Farxiyo Cabdullaahi oo kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed ayaa waxa laga faafiyay muuqaal fadeexad ah hadaba muuqaalkaasi waxa la sheegay Farxiyo inuu ka codsaday yar ay saaxiibo ahaayeen oo uu ka dhaxeeyay xiriir jacayl laguna magacaabo Cabdiraxmaan Xuseen Cabdiraxmaan ayaa wuxuu Farxiyo ku cadaadiyay hadii ay jeceshahay inay u soo dirto muuqaal jirkeeda uu qaawan yahay waxa ayna si fudud ugu dirtay jacaylka ay u qabto awadiis muuqaalka uu ka codsaday laakiin Cabdiraxmaan wuxuu sameeyay Cabdiraxmaan ayaa si fudud ugu diray dhalinyaro ay saaxiibo yihiin muuqaalka ay u soo dirtay saaxiibtii muuqaalkan ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa la wareejinayay baraha bulshada gaar ahaan Facebook iyo WhatsApp iyo waliba meelaha kale ee dadku ku wada xiriiraan waxaana muuqaalka ka dhex muuqda gabadha lagu magacaabo Farxiyo oo gabi ahaanba jirkeedu uu qaawan yahay waxaana arrintaasi si weyn uga carooday familka Farxiyo waxayna taasi keentay in waalidkeeda hadda uu cadaadis saaro gabadha masaakiinta ee wiilka ay jeceshahay u dirtay muuqaalka waxaana arrintaasi ay ku dhacday fudeed aysan Farxiyo ka fiirsan qofka ay u dirayso muuqaalkeeda laakiin muddooyinkii ugu dambeeyay dhalinyarada Soomaalida ee wiilasha ah waxay sameynayeen inay si sahlan gabadhaha uga qaadaan muuqaalo aysan raali ka ahayn iyo kuwa ay raali ka yihiinba dadbina si sahlan ay ugu faafinayeen baraha bulshada waxaad arkaysaa gabdho badan oo ka cabanaya dhacdooyinka noocan oo kale ah waxa laga yaabaa qaar badan oo idinkay daawanaya kamid ah inay comment qaldan soo qoraan oo ay dhahaan waxaad fadeexaynaysaa dumarka Soomaaliyeed balse arrintan waxa ay la soo wadaagay Farxiyo oo ah gabadha aad codkeeda maqlayseen barnaamijkeena bilowgiisa si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii waxaan ku baraarujinayaa gabar walba oo Soomaaliyeed in ay ka fiirsato qofka ay xiriirka la sameynayso waxaan sidoo kale ka codsanayaa gabar walba oo Soomaaliyeed in aysan sawiradeeda iyo muuqaaladeeda soo dhigin baraha bulshada haddii kale arrinta noocan oo kale ayaa ku dhacaysa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biro taabo calaamadda subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada